الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي لما هدله وإنت Soomaaliya dhalinyaro gabdho da-angooda ay isu yimaadeen runtii waa wax aad loogu farxo ilaahay looga mahadceliyo weeye ana sharaf weyn bay ii tahay dhalinta iyo community-da Columbus Somali communities of Colombo oo iga soo qaybgelisay munaasabadatan oo runtii sharafta qiimaha leh oo ii suurtagelisay runtii dadaan asxaabna aan nahay oo muddo badan is arag ay ugu horeyso walaashay hibo nuura fanaaniinta Soomaaliyeed qaar baa yaraheeda tuursaday aad moodayso oo dabeeshaan oo maaragtay foosha xule oo aynu ku noolayn ay malaha xoogay meel ay u durjisay laakiin walaashay hibo weli waxay ku taagan tahay tubti waagi markay bilowday waa wax lagu ammaano runtii lagu gogaadiyo oo annagoo dhan bay qiirana gelinaysa xamaashadna gelinaysa mar allaale markaan heeskeeda maqlo ama ayadaan arko runtii xamaasad gooni ay gasha anigu reer xudur baan ahay marka reer xudurkayga waxaa waay marka allaale marka xamaashadna gasho waa bururnaa burarku yani waxaad galaysaa trance haddii aysan goobta aysan joogin dad kaa soo saari karo marka qofkii wuu ku wareeri marka ma jeclay inaan trance galo oo laakiin waan burursanay runtii waxyaabahan aad u xusuusto oo ay hibo masalan xusuusanayaan waxaa ka mid ah in ay iska ilaalisay runtii waxyaabaha oo intii mararka qaarkood qofka aad odhanayso qofkii maxaa dhacday ninaan saaxiib nahay waa taqaanaan oo the first Somali gold medalist so ma waa taqaanaan Cabdi Bile among the things I'm really ku ilaabay anigu reer Georgia aan sida laydin sheegay Atlanta Georgia 1996 waxaa lagu qabtay the Summer Olympic Games waxaan ka mid ahaa committeeska oo qabanqaabinaysay maadaama aan reer Georgia ahay waxaan xusuustaa rag iyo haween Soomaali oo Cabdi ka codsaday inay yiraahdaan Cabdiyow waxaad meesha la maraysa calanka Soomaaliland gurey meelaha Cabdi Bile waana ku ixtiraami waa ku sharfi sida walaashay aan ugu sharfaayo wuxuu yiri waxaanu galada markaan qaatay calankii aan qaaday un baan qaadi doonaa calanka lama qaadi karo wana ku garreeyay runtii munaasabadan laygu sharfay waxaan kaloo u mahadcelinayaa jaaliyadda oo dhan oo iga soo qaybgelisay gaar ahaan walaalkay Xasan Cumar oo runtii si gooni ah iigu soo invite gareeyay inaan kala soo qaybgalo munaasabadda moodkaygu hadda aad iyo aad buu macaan yahay waa runtii heesta macaan oo wadaniya gabayo oo xamaasadna gelinaya riwaayado oo naga qosliyey anugu marka waxaan isku dayay bal inaan isku daro labadaba kuwa oo kaa murjiyay iyo kuwa kaa farxiyay labadaba inaan isku daro isku dayay haddaan Soomaali nahay maanta magaca Soomaalidu wuxuu lala lamaanayn karaa ama la lamataanayn karaa waxyaaba aad iyo aad u fool oo masalan waxyaabaha laga xishooda ay ka mid yihiin ayaa markii Soomaaliya la yiraahdo isla markiiba qofka maskaxdiisa ku soo dhaca waxaa ka mid ah abaar iyo oon يعني مرة أنا Soomaaliya yiraahdo qofka immediately wuxuu xusuusan karaa waa meeshii abaaraha badnayd waa meeshii oonka badnayd ayaa maskaxdiisa ku soo dhacaysa famine and drought
waxaa maskaxda ku soo dhacaysa marka Soomaaliya yiraahdo burbur destruction ya qofka maskaxda ku soo dhacaysa waa meeshii burbur ka badneed dowladda Mareykanka waanu ka mid nahay anu qudhay American Soomaaliya ayaan ahay yani waxyaabaha la tuso ground zero waa meel yar oo magaalada New York ku yaalo weeye laakiin magaalo kastoo Soomaaliya aad tagtid waxaa ku yaala ground zero burburka xamar gaalkaayo Boosaaso Hargeysa Baydhabo Kismaayo ka dhacay iyo inta ku dhimatay iyo dadka kan hadda mesela ground zero ka sheekaynayo waxaad arkaysaa dadka kale waxba ma gaarin oo waxaa lala lamaanayaa Soomaalidu barakac waa internal displacement dad qaxayo guuraayo ordaayo oo meel baan caqligeena waxaa lala lamaanayaa Soomaalidu burcadnimo bandits waxaan la yidhahdaa outlaw bands aan sharci iyo waxba ilaalinayo waxaa lala lamaanayaa booli iyo belilabo outlaw yani qolahaagi ayaa la dhici waxaa lala lamaanayaa rape kufsasho waxa laalay runtii mar rabo dawaataan idin waxyaabaydii ka nixinayaan idin sheegaya laakiinse kulleyba waa ila fahmi kartaan baan u malaynayaa wadhiinaa ku dari karaya cabdisamiiciyo baa ka samayn doona mataqaanaa tix kale yani waxyaabaha oo xishodarrada oo aynu Soomaalidu maanta lagu lamaanayo dadka magaca markay maqlaan ilaa mar dhoweyd haddaad Google garaysid Soomaaliya waxaa kuu soo baxaya the only failed state dal baa United Nations ay kamid yihiin dalka kaliya aan dowladda ahayn ayaa mar walba ku soo baxaya marka waxaan nahay the only failed state dhalinyartan maaragtay Soomaalida dhalinyarada ama halkaan ku dhalatay oo 22 jirka maanta ah ama ayagoo yar halkan markay asxaabtooda oo meelo kale ka yimid masalan dalal kale ka yimid ay la sheekaysanayaan high schoolka ay wada dhiganayaan ama jaamacadda ku wada jiraan dalkoodii markii la eego la Google gareeyo oo waxaasoo dhan ka soo baxaan inankii ama inantii yani yare way xishoonaysaa wax allaale wax wanaaga oo ay arkeen asxaabtoodii baa la weynaya waxaa dhici karta inankaa yar iyo inantaa yar inay xataa mar dambe ay batiraado hadii la weydiyo adugu xageed ka timi anugu inay tiraado anugu Kenyaan baan ahay Djiboutiyaan baan ahay something meelaha Soomaaliyan inay ka xishoodaan baa dhici karaysa haddaba ummaduhu markay xilliyadaas oo kale ay marayaan taas oo kale markay ku dhacdo ogaada annaga ma nihin dadkii ugu horreeyey oo tan oo kale ay ku dhacdo hortaas waa su-aasha loo baahan yahay in la isweydiiyo annagaa ugu horreynay dal sidaas oo kale noqday u malayn maayo ummado badan baa soo maray reer Yurub reer Asia Africa Maraykankan dunidana way soo martaa xilli qalafsan oo runtii aad iyo aad u adag oo marka waxaa la isweydiiyaa sidee baa looga baxaa dhibaatada noocaas oo kale markay dhacdo maadaama haddii aan ogaano inaan anagu keliya ahayn meelaha tan oo kale ka dhacday waxaad arkaysaa ummaduhu dhowr example baan idin siinayaa masalan reer Yurub oo kale reer Yurub 600 sano ka hor haddaad eegtaan anu nin taariikhyahan baan ahay taariikhdan aqaan marka tusaalooyinkaygu waxay u badnaanayaan taariikhday u badnaanayaan Yurub qarnigii 13aad waxaa la yidhaahdaa wax renaissance la yidhaahdo ay sameeyeen renaissance micnihii waxaa weeye waa rebirth dib u dhalasho reer Yurub qarnigii 12aad 13aad waxay ku sugnaayeen xilli loo bixiyey xilligii mugdiga the dark age waxaa ka wanaagsanaa dalal badan oo Afrikaana waxaa ka horumarsanaa muslimiinta ka horumarsanaa bal xataa muslimiintu
dalal European bay haysteen waqtigaas qarniyadii 12aad iyo ka dambeeyay Spain baa kamid ah Portugal baa kamid ah Greece baa kamid ah Southern Italy baa dhulkaas oo dhan Muslim baa haystay waxay arkeen inay meel cilada taagan Asians China oo kale ayaa ka xoog badneed European waxay isweydeen haddaba waa inaan mar labaad dhalano we have to rebirth renaissance waa inaan sameeyno say ku sameeyeen waxay isku dayeen bal in ay taariikhdooda ku noqdaan oo ay ka helaan waqtiyo oo ay wanaagsanaayeen oo marka aad tusaale ka dhigatid reer Yurub oo dhan baa intay isu tageen waxay war nimayaha goormay Yurub ay wanaagsanaan jirtay waxaa la soo helay laba xilligii Greega iyo xilligii Romans iyo Greek civilization reer Yurub waxay ahaayeen markay ugu cilmi badnaayeen ugu dhaqaale fiicnaayeen ugu xoog badnaayeen ay soo arkeen tumakan bas tibay boorka ka jafeen waxay yiraahdeen haddii aan tii ku noqono waxaan gaari doonaa horumar iyo barwaaqo wayna gaareen qarnigii 15aad wixii ka dambeeyay ilaa maanta dunida oo dhan waxaa horseedaya Yurub wax dhacay xalqada muslimiintu haddaad weydiisid maanta muslimku wuxuu ku sugan yahay meel aad iyo aad halis u oo sida Soomaalida oo kale mararka qaarkood islaamku waa laga faanaa waxaa loo arkaa argagixiso waxaa loo arkaa waxaan qoslaynin oo caraysan waxaa loo arkaa wax raba inay wax burburiyaan way isweydiiyaan waxay talow islaamka maxaa saan ka dhigay maxay u dhacday waqti aan lahaa islaamku wuu uga ka heer sarreeyay Yurub waayo hore xitaa u dhacday waxay ku jawaabaan waxay yiraahdaan idinku dhan waa ku warqabtaan waa inaan u noqonnaa xilligii nabiga fiiriya يعني اسكي الله حتى حلق الخلافة iyo maya ma rabno dhibaatooyin khulafada afar bay ahaayeen saddex bawaal dilay Soomaa laba waxay ku dhinteen gacan muslima waxay koornaan naga daaya xataa khilaafada waa dib badan tahay aan u noqono tiin nabiga waayo tiin nabiga ayagu islaamku wuxuu ahaayay mid dhaba haddii taas ay dhacdo run ahaantii muslimiintu ayagana way ka baxayaan mugdigan ay ku jiraan maanta ama mugdiyada ay soo marayaan waayadii gumaysaha lala diriraayay way ka soo baxeen waxay kula dagaalameen dib ay kula dagaalameen Afrikada madow oo halkan la keenay oo hadda la yiraahdo African Americans waa tii halkan marka la keenay laga xayaayubay wax allaale waxay ahaayeen afkoodii waa loo diiday diintoodii waa loo diiday magacoodii waa laga bedelay waxaa la yiri adoon baati waa lagu leeyahay chattel slavery maba status damalihiin oo adigu waxaa tahay wax la leeyahay qarniyay qaadatay oo ninkii madooba uu ku wareeray wartani say qabata see baan uga bixi karaa wuu isweydiiyey wuxuu istusay ninkii madooba Mareykanka ah haddaad maqasheen shimbir baa jirta la yiraahdo Sankofa wax maqleeyay ku jira oo maqashay waa shimbir markay buubayso gadaal bay eegtaa qorayna waa u duusha waxa la yaab waxay ku jirtaa sheekooyinka Afrikada galbeed marka shimbirtaana waxay leedahay haddaadan ogeyn meesha ka soo duushay gaari maysid meel fiican oo ka horeysa ma jirto marka hadiye jeerba waa inaad gadaal eegta oo waxyaabihii aad ka soo tagtay xataa maartay saad markaad u noqoto u soo qaadatay Mareykanka madooba arrintii wax weyn bay tartay way ka baxeen oo maanta waxay gaareen in madaxweynaha maanta Mareykanka inuu yahay nin madow arrin labaad aan tusayaa oo iyadana loo baahan yahay inaan istusno oo si markaa murugadan iyo dhibaatadan aan sheegay aan uga baxno maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah
dunidu asalkeedii baa la isweydiiyey xay ka soo jeeday. Where is the origin of man? Europe intay xoogga lahayd waxaana la tusay bani aadamku wuxuu ka soo jeeday Europe. Neanderthal man baa jira oo Germany laga helay, Ingiriiska laga helay, Talyaaniga laga helay, Europe baa laga soo jeeday ayaama la isaga sheekeyn jiray. Cilmigii baa soo kordhay, waxaa la helay technology tii ka xoog badan oo runtii date si fiican u samayn karayso. waxaana la tusay haddana Asia, China, Indonesia meelahaas ka laga soo jeeday. qarnigii 20aad culimada baarta taariikhda, archaeology, anthropology iyo history waxay soo heleen insaanku inuu ka soo jeeday geeska Africa. waxa la yaab the origin of man is the Horn of Africa. weliba waa meesha ay Soomaalida degto. marka haddii aanu nahay we are the origin of man, marka waxaan u malaynayaa runtii waxyaaba aan ku faano ayaaba jira moogta ummad kan cadkan madowkan guduudan kulli waxaad ka soo jeedeen Soomaaliya. nasiib daraa dhacday waxa weeye qofka Soomaaliga ahaa yani waxyaabihii uu ku faanayay qaar baa qofka hadal badan waxaa la yiraahdaa waa dhaxal aabaha buqaaqata. dowladaha aan dariska nahay gaar ahaan Ethiopia ayaa sheegatay islaam maxay lahaa bani aadamku wuxuu ka soo jeeday koonfurta Ethiopia. hadda waa dalkeena koonfurta Ethiopia ka soo jeeday tibaa la iibiyey oo meel kasta la geeyey museumada la dhigay. innaga kamaba warqabno meesha la sheegay inaan ugu wanaagsan. waxaan rabaa marka inaan idin tuso meelayo oo malaha qaarkiina ay maqleen oo badidiinana laga yaabo inaydan maqal. Soomaaliya ma maqasheen wax la yiraahdo the Doi civilization. DOI civilization. xadaarada Doi. Doi waxaa ku yaala buuraley badan baa ku yaala. culimada taariikhda qaar waxay yiraahdeen 100 dhowr weeye. buur kastaba waxaa ku aasan dad oo prehistoric intaan taariikhda la bilaabin jiray. laga yaabo inay boqorro ahaayeen, laga yaabo inay maxaa yiraahdaa rijaaludiin inay ahaayeen baa ku aasan. hal buur baan idinka tusaaya. buurta la yiraahdo buur Haybe. ma maqasheen? buur Haybe marna waxaa la yiraahdaa buur Eyle. labada arrimood Haybe iyo Eyle waxay tilmaamayaan taariikh hore. Haybe maxay tahay? Haybe waxa weeye ooqada laga sameeyo clayga, pottery, dheriyaha, ashuumada, idamada, waxyaabo badan baa laga sameeyaa. waa waxyaabaha markii la raadinayo taariikh hore astaan u ah. museumkiina taga oo human history oo ku yaala Columbus waxaad eegtaan meesha pottery. reer Columbus markay rabaan inay kala faanaan waxay tusayaan jiliyo idamo oo la jajabiyey oo dhahay waagaasaan samaynay. buur Haybe ilaa hadda waa laga sameeyaa eriyadaas iyo ashuumadaas iyo shaambiyaashaas waa laga sameeyaa. waa astaantii taariikheed weliba taariikhdii hore pre-islamic ay tilmaamaysaa. Eyle waa dad adeegsada ay waagan aygu yani reer galbeedku waxay ugu yeeri jireen waxay oran jireen man's best friend. soo la mira hadda women's best friend inuu noqday markii la joogo galbeedka. marka aygu waxaa taariikhyahanku waxay sheegaan waa xayawaankii ugu horreeyey oo la domesticate gareeyey oo dad lagu soo daray reerka. waagan lo iyo geel iyo arag iyo ka hor dadku waxay domesticate garaystay ay waayo bani aadamku waad la socotaan waayadii hore 2 xirfadood kaliya jirtay. xirfadina waxay ahayd
إيشاغد وغاسي exactly وغاسي midna waxay ahayd wax la soo guro oo gathering hunting and gathering this were the two professions bani aadamkii hore u lahaa haweenka la yiraahdo ayaga soo guri jiray ragnu wuxuu soo ugaarsan jiray habeenkii bay isu imaanayaan waxay soo gurtay iyo wuxuu asiga soo dilay baa la soo geeri jiray wagan aygu marka wuxuu ahaa xayawaanka kaliya huntersku ay ka heleen waayo ama waxba u soo dili ama waxaad soo dilatid buu ku ilaalin loo dhawaan maayo haddaad keentid halkan masalan xayawaanaad soo dilatid maanta aylada anagu waxaan idhahnaa waa dad laga roon yahay they're not good people ayle in fact we have to be proud of inaan weli dalka ku hayno elements of ancient history fagan ayluhu ninkan aylaha aan leenahay waa soomaaligii hore sidaa soomaali dalad ah annaga waxaa baniri qaarkayagu carabaan ka nimid haashimiin baan nahay adugu ma tahay haddaad carab tahay soomaali fiican matiida ma tahay soomaaliya dhaladana matiid waxaa kaa dhaladsan kaa soomaaliyaysan qofka aad wax ku sheegtay ogaada carabnimadaani hog bay naga tuuraysaa runtii darurada waayo ayagaa waxay qabaan waxyaabo la kala saarsaaro kani waa laandheere kan waa laangaa marka aylihii oo dhaladka ahaa baa la yidhi waa nin xun I want you guys dadka dhalinyarada kiina oo dhan runtii inaad ku faantaan waayo maba jiro in the world history meel dadkaas oo kale hadda ay noolyihin cid allaale ama soomaali allaale oo annaga aan farta ku fiirno anigu waxaan idin leeyahay asigaa soomaali dhalada gabooyaha la sheegaayo midgaanka la sheegaayo kulli waa xirfadlayaashii bani aadamku markuu soo dhaafay derisamaynta wuxuu soo gaaray inuu samaysto hub samaystasho wagan birtiiba bir baa leedahay iron technology marka dadka birta wax ka sameeya annagu waxaan baniri waa tumaal already calaamad baad saartay hadda waa ninkii birta ku tumi jiray oo warshadda iyo farsamada oo waxyaabaha aad ku samaynayo tumaalku waa soomaaligii hore weeye oo carabta ku timid waagana cid allaad ciddaan wax ku sheegno these are the origin of Somalis ayaga waa inaan marka ku fahnaa aan isu sheegno Uraibe, in addition to clay pottery iyo the dark tradition, waxaad ka helaysaan waxaa ku yaala sheltero waxa la yidhahdo rock shelters. Rock shelters waxaa ugu muhiimsan mid la yidhaahdo shelter ama gurigii abka eedan iyo ogoyhaaw. waxa weeye guurtii dhexdeediba waxaa ku yaala meel guri oo kale u samaysan calaamadaha ay leedahay waxbaa ku sawiran soomaalida degsadooy way siyaartaan oo waxay yidhaahdaan waa nabi aadan iyo xaawo gurigoodii waa rufyase abka eedan waa aadan oboy xaawo iyo obo eedan ilika duganayaan waagan maxay kuu tilmaamaysaa oo inaan kaba warqabin bibleka qur'aanka ii sheeg tooraadka talmuudka tribitaankada buug allaale buug diina wuxuu tilmaamayaa bani aadamka waxba ka soo jeeda anagu waabatan idhahno bani aadam baan idhahno mogta aadam buu ka soo jeedsa lama yidhahdo marka aadamkii waaba soomaaligaas weyn maadaama aynu hayno aqalkiisii iyo ogoyhaawo ay kula nooleen we have to tell the world. Yeah, exactly. Look, so about
Christian tihiin soo ma aaminsatiin aadan baa ayaa ugu horreeyey haa soo ma jirto Garden of Eden wax la yidhahdo haa markaasay ku taalla haddaba imaada waxaad ka helay maxaan ka helnaa tourism iyo adduun baan ka helaynaa anigii baan sheeganaynin wataan yidhi kuwa naga hadal badan baa waxaas oo baan sheeganaya eriyada iyo ashuumaha iyo meesha laga sameeyo markaad fiirsaan waxbaa ku xaradhan xaradhu waxay tilmaamaysaa waxyaabo motifs oo prehistoric ama qabiil ama waxbay sheegaysaa ama qofka magaciisa bay sheegaysaa ama saas weeyaan waa